inkastoo aan si dhab ah loo xaqiijin geerida Benjamin Netanyahu ra'iisul wasaaraha waddanka Israa'iil haddana warar qaar ayaa sheegaya in gantaal ay ku dhufatay Iiraan goob uu ku dhuumanayay Benjamin Netanyahu. Duqeynta Iiraan ayaa ah midii ugu xoogganayd ee lala beegsado waddanka Israa'iil, waxaana wararku ay tilmaamayaan in goobo fara badan ay ku dhaceen. Waxyeello ayaa jirta sida ay wararku tilmaamayaan dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray dad rayid ah duqeymihii ugu dambeeyay. Dagaalka ayaa galay maalintii saddexaad, waxaana wararku ay tilmaamayaan in kan maanta uu ahaa kii ugu xoogganaa ee dhacay.